السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan sii wadan doonaa cashirkeenii cardiovascular systemka qaybtiisii labaad ee circulatory systemka uga hadli doona maanta si detail ah. Sidaan horey videogeennii hore uga soo hadalnay, bloodka waxaa laga soo celiyaa oo laga soo qaadaa lungs-ka isagoo oxygen wata, then marka oxygen lagu soo daro waxa soo qaada pulmonary vein kaasina wuxuu keenaa left atrium kaasina then wuxuu sii gudbiyaa isagoo maraya mitral valveska, then left ventricle kusii gudbaa, then left ventricle sii contractilaya. sidoo kale qaybta right-ka superior and inferior vena cava ayaa dhiiga ka soo qaada jirka deoxygenated bloodka aan wax oxygen lahayn, then wuxuu kusoo celiyaa iskama uu keenaa waa right atriumkaasina wuxuu sii marayaa tricuspid valveska, then wuxuu geeyaa right ventricle wuxuu sii bamgareeyaa ilaa iyo pulmonary artery-ga, saasuu ku taga lungs-ka oo dib oxygen loogu soo daro loona soo celiyo. Hadda markaan ka hadlayno heart-ga, this is was septum of the cardiac septum baa loo yaqaanaa, waxayna kala socdaa right heart-ga and left heart-ga. Right heart-ga iyo left heart-ga kala socdaa. Haddaba heart-ga markaan ka hadlayno, dhiigu marka uu atriumka kusoo dhaco left atriumka mitral valveska soo maro wuxuu ku yimaadaa waa left ventricules kaasna contraction ayuu sameeyaa suu u geeyo aortahaas uu dhiiga ugu tuuro. Contractionka uu sameynayo wuxuu sameeyaa in ayuu u sameeyaa. Haddaba this button waxaa loo yaqaanaa apigus and this is waxaa loo yaqaanaa base of the heart oo loo yaqaano qaybta flattened-ka oo base of the heart ah, and this isna waxaa loo yaqaanaa apigus. Haddaba ventricle-ku markuu contraction sameeyo left ventricle-ku wuxuu sameeyaa as in, this is button wuxuu sameeyaa upward, that is in-ka uu sameynayo iyo upward-ka contraction ku sameynayo waa in and upward. Marka sidaas uu contraction ku sameeyaa waxaa loo yaqaanaa septum ayaa loo yaqaanaa. Twist baa loo yaqaanaa, twist, that's waxa la yiraahdaa marka cardiac twist waa in and upward, that is twist, cardiac twist. Haddaba marka uu contraction sameeyo ventricle-ku markay contraction sameeyaan waxay dhiiga u tuuraan waa artery-ga iyo pulmonary artery iyo aorta si ay dhiiga u kala gaarsiiyaan, midna lungs-ka u geeyo aortuhuna u geeyo tissue of the body. Then markay contraction sameeyaan the volume degree of the heart wuxuu noqdaa volume-kaas wuxuu noqdaa degrees buu noqdaa, degree uu hoos buu dhacaa uu degrees garoobaa xagga uu pressure-kuna high noqdo ee uu kor baxo. marka uu volume-kaasi degree noqdo pressure-ku wuxuu noqonayaa high, marka uu volume-kaasi increase noqdona pressure-ku wuxuu noqonayaa low. haddaba volume-kaas markuu contraction sameeyo volume-ku decrease garoobaya. Then mitral valveskaasi markuu aorta dhiigu soo marayo wuxuu sameeyaa open downward buu open u sameeyaa si uu dhiigaas u yimaado left ventricle-ka. Then markuu open sameeyo hadda ventricle-ku markuu contraction sameynayana waxa uu sameeyaa inuu isxiro oo kor isku xiro. Otherwise haddii kaleeto isxiri waayo waxaa dhacaya regurgitation, inay dhiiggii halkan ha u dib ugu laaco atriumka, kaasina wuxuu keeni doonaa arqalada aad u fara badan inuu dhiiggii halkan dib ugu noqdo oo halkan dib ugu ururo, then dhiiggii pulmonary vein-kuna uu lungs-ka dib ugu noqdo, lungs markuu noqdona ilaa right heart-ka dib ugu soo noqdo. taasina cilada insha Allah waxaan rajaynaynaa dhigan doono valves disease-ka oo ah stenosis iyo regurgitation ay sababaan inuu valveskaasi xirmi waayo iyo inuu furmi waayo, labadaasba way ku sababaan. marka insha Allah gadaal baan ka dhigan doonaa iyagana fahmi doonaa. hadda laakiinse physiological ayaan hadda dhigan doonaa. Physiological marka contraction la sameynayana wuxuu sameysmayaa in maxay ahayday uu isxiro oo up the way isku xiro, then dhiiggaasina waxaa furmi doonaa waa artery semilunar valves furmi doona oo dhiiggaasna wuxuu tegi doonaa artery-ga, dhiigga artery-ga ku jira suuna dib ugu soo noqon waxaa isxiri doonaa this one uu isxiri doonaa semilunar valveskaasi uu isxiri doonaa isagoo down the way isku xiraya suu dhiiggaas ugu soo noqon left ventricle-ka. other side sidoo kale tina qaybtana waa sidaas, markuu dhiigu yimaado right ventricle-ka markuu yimaado right atrium-ka markuu yimaado wuxuu dhiiggaas soo maraa tricuspid valveska soo down the way u furmaya, buu furmaa. then markuu dhiiggaas xag yimaado uu right ventricle-kaasi contraction sameynayana waxay isxirayaa tricuspid valveskaasi up the way buu isku xiri doonaa, isagoo up the way isku xiri doonaa. then waxaa furmi doonaa
waa pulmonary sublunar valves baa furmi doona denna dhiiggaas wuxuu tago pulmonary wuxuu tegi doonaa pulmonary artery-ga pulmonary artery markuu tago sublunar valveskaas isaguna wuxuu isku xiri doonaa down the way isku soo xiri doonaa si dhiigga pulmonary artery-ga tago dib ugu soo noqon right ventricle-ka denna dhiiggaas wuxuu tegi doonaa lungs-ka ayuu sidaas ku tegi doonaa marka ay halkaa tahay contraction marka uu sameynayo atriumka waa right atrium and left atrium waxay sameeyaan iyagu in ay contraction at the same time mar isku mid ahaata bay contraction downway boo sameeyaan iyagoo contraction sameeya downway say dhiiggaas u keenaan ventricleska u keenaan ventricleskaasina waxay sameeyaan contraction say dhiigga u geeyaan lungiska u gaarsiiyaan iyo tissue of the body u gaarsiiyaan ayay contraction sameeyaan like this contractionkaas ayay sameynayaan heartigu wuxuu sameynayaa ventriclekaasi waxay sameynayaan iyagu contraction ay sameynayaan at the same time and atriumkuna at the same times ayay down the way contraction also sameynayaan this is mitral valves and this is tricuspid valves aortic valves isaguna halkaa ku jira iyo pulmonary sublunar valves this is then contractionka heartigan waa sida ugu sameeyo at the same time is with two ventricleskaasi contraction sameynayaan and then one time is way atriumkuna contraction downway u sameeyo then markuu contraction sameeyo wuu isxirayaa mitral valvesku markuu relaxation sameynayana wuu furmayaa si uu dhiiggii atriumka ku jiray left atrium ku jiray uu soo galo ventricleka uu soo galo that is the contraction uu sameynayo weeyaan haddaba marka uu sameynayo markaan ka hadlayno mitral valveskaasi ee uu soo furmo atrium markuu contraction soo sameeyo mitral valveskaasi isfuro uu ventricleku contraction sameynayo wuxuu sameynayaa inuu isxiro oo xidhmo mitral valveski uu xidhmaya isagoo xidhmaya up the way this is apical zone waxaa jira zone lagu yaqaano oo uu sameeyo markuu isxidhmayo oo loo yaqaano lab bula kor ayuu isku xidhayaa waa up the way buu isku xidhayaa dinna wuxuu sameynayaa lab buuna odhanayaa this is lab this is lab means marka uu mitral valveskaasi isxirayo wuxuu sameynayaa lab codka ah lab buu sameynayaa lab buu sameynayaa then marka uu labtaa sameeyo contractionka ventricleku sameeyey wuxuu si toos u furmayaa aortic sublunar valveska ayaa furmi doona denna dhiiggaas wuxuu teganaa aortaha dhiigga aortaha kasoo noqonaya suuna ugu soo noqonin left ventricleka una ugu soo noqonin aortic sublunar valveskaasina isaguna uu xirayaa isagoo markii hore isku furaya up the way imika wuxuu isku xirayaa down the way wuxuuna sameynayaa soundka uu sameynayo loo yaqaano deb uu sameyn doono oo uu hoos isku xiri doono oo uu sameyn doono soundka ah deb then soundka lagu yaqaano caadiga uu sameeyo ayaa ah deb uu sameyn doono oo lagu yaqaano soundka caadiga ee lagu yaqaano disna wuxuu sameyn doonaa deb uu sameyn doonaa markuu contraction sameeyo wuxuu sameyn doonaa lab relaxation keena deb waxaad ku tijaabin kartaa one of your friends samee stethoscope qaado kadibna markaad heartigiisa dhegeysato waxaad ka maqli doontaa soundka ah lab ayaanad ka maqli doontaa haddana waxaan insha allah sii gudageli doonaa sida uu around the wall around the body tissue-ga uu ku tago bloodiska ku tago marka hore dhiigga laga keeno langiska dhiigga oxygenated kale oxygenta ku jirta alveolaha joogtahay waxay sameysaa deficient gradient ayay sameysaa waxay ka imataa oxygenta waxay sameysaa from the alveolar to the blood and carbon dioxide ku jiray
blood in the blood kana wuxuu sameeyaa waa from the blood to the alveolar si dibadda loogu saaro alveolar isaga lageeya then marka oxygen tahay bloodka soo dhex gasho waxa soo qaada pulmonary venka soo qaada pulmonary venkaas markuu soo qaado wuxuu keenaa left atrium ku keena left atrium ka markuu keenana then left atrium ku wuxuu soo gudbiyaa left ventricle ka isagoo soo maray mitral valve-ka left ventricle ka marka loo gudbiyo left ventricle kaasna wuxuu si contraction gareeyaa aortaha isagoo soo maraya aorta cerebral valves then aorta markuu dhiiggaas maro wuxuu si toos u bilaabaa inuu systemic circulation u bilaabo uu systemically si uu jirka u gaaro jirka markuu gaaro waa up and down ayuu gaarsiiyaa lower body and upper body parts haddaba artery baa qaada dhiigga artery-ga qaadaya marka amiska iyo upper extremity-ga uu tagayo waxa qaada bronchial artery-gaasna xogeeya aamka markuu bronchial artery-gaas geeyo then capillary of the markuu bronchial artery-gaas geeyo capillary of the aamka marka la gaaro waxuu samaynayaa dhiiggaasi in oxygen-ta lahaa in oxygen-tii tissue-ga la geeyo cellsku isticmaalo then carbon dioxide-kana la soo qaado then deoxygenated blood-kana waxa soo qaadi doona cephalic vein loo yaqaano cephalic vein oo ka soo qaadi doona amiska thenna kusoo dari doona ilamaa iyo superior vena cavaha kusoo dari doona then superior vena cavahaasna marka lagu soo daro siduu u soo wada dhiiggaas waxuu keeni doonaa right atriumka ayuu keeni doonaa waa dhiigga laga soo qaaday cephalic vein ayaa kasoo qaadi doona aamka then waxaa la keeni doonaa superior vena cavahana wuxuu keeni doonaa then sidoo kaleete waxaa sii qaadi doona dhiiggaas carotid artery-gaasna wuxuu geeni doonaa headka brainka iyo dhulkaasuu geeni doonaa brainka marka la geeyo waxaa dhiig tissue-gaas iyo brainku markay oxygen-ta isticmaalaan waxaa soo noqon doona bloodkii oo deoxygenated blood ah waxaana soo qaadi doonaa jugular vein baa loo soo qaadi doona oo GV loo yaqaano jugular vein-kaas marka uu soo qaado wuxuu kusoo dari doonaa superior vena cavahaasna wuxuu keeni doonaa ilamaa iyo right atriumka ayuu keeni doonaa sidoo kaleete markuu artery-gu dhiigga qaado wuxuu lower part of the body-ga si loo gaarsiiyo waxaa qaadi doona aortaha markuu qaado waxaa si toosa dhiiggaas u qaadi doonaa hepatic artery-gaasina wuxuu geeni doonaa liversku toosu geeni doonaa hepatic artery-gaas markuu liverka geeyo liverkana waxa dhiigga markuu liverku tissue-giisu isticmaalo deoxygenated blood-kana waxaa ka qaadi doona hepatic vein baa ka qaadi doona waxaanu ku dari doonaa inferior vena cava sidoo kale dhiiggu wuxuu tegi doonaa intestineka si u tago intestineka waxaa qaadi doona dhiigga mesenteric artery loo yaqaano ayaa qaadi doona wuxuuna geeni doonaa intestineka veinitu ka qaado si toosa oo si directia uma geynayo inferior vena cava laakiin waxaa ka qaadi doona hepatic portal vein ayaa intestineka qaadi doona denna wuxuu si toosa u tegi doonaa liverka la geeni doonaa deoxygenated blood-ka laga qaado intestineka waxaana qaadi doona hepatic portal vein then liverka markuu tago liverkana waxaa kasii qaadi doona hepatic vein-kaasana ku dari doona inferior vena cava sidoo kaleete dhiiggaasi wuxuu tegi doonaa kidnigu tegi doonaa waxaana qaadi doona renal artery baa qaadi doona renal artery-gaas markuu kidniga geeyo oo kidniga uu geeyo oxygen-tii laga isticmaalo denna oxygen-taas waxay noqonaysaa low denna deoxygenated blood-kana waxaa qaadi doona renal vein-kaasina wuxuu si toos ugu dari doonaa inferior vena cavana wuxuu si toos ugu geeni doonaa right atriumka sidoo kaleete dhiiggaasi si uu lower ka wada gaaro wuxuu tegi doonaa waxaa qaadi doona iliac artery si u tago pelviskii iyo si u gaaro dhiiggaasi sidoo kale waxaa qaada femoral artery ba isaguna qaada oo geeya legiska geeya femoral artery ba qaada kadib femoral artery-gaasi markuu qaado ama iliac artery-gaas uu qaado then dhiigga waxaa isticmaala cellskii markuu oxygen-tiisa isticmaalo denna waxaa lasoo qaadi doonaa carbon dioxide iyo dhiigga lagu soo dari doonaa carbon dioxide kaasna waxaa soo qaadi doonaa waxaa loo yaqaano iliac vein ama femoral vein oo isaguna si toos ugu soo dari doona inferior vena cava then inferior vena cavahaasina markuu soo qaado wuxuu keeni doonaa right atriumka markuu keeno right atriumka waa laga sii contraction gareyn doonaa waxaana simula tricuspid valves waxaana tegi doonaa right ventricle-kana marka uu bamgareeyo waxaa furmi doonaa pulmonary semilunar valves tanna wuxuu tegi doonaa pulmonary artery-gaasna dhiigga wuxuu qaadi doonaa ilaa wuxuu geeni doonaa lungeska markuu geeyo
isaga oo wada carbon dioxide high carbon dioxide ah. din carbon dioxide kaasi waxaa laga qaadi doonaa dhiigga oo from the blood to the alveolar alveolaha la geyn doonaa. oxygenta alveolaha talena oo from the alveolar to the blood baa la keeni doonaa. then dhiiggaas oxygentaasna waxaa dib u soo qaadi doona dhiigga dib loogu soo diri doona waxaana soo qaadi doona pulmonary vein halkii ayuuna circulationku dib uga sii bilaami doonaa sidii ayayna circulationku uu dib u bilaabi doona oo halkiisi ugu noqon doona. insha allah waxaan rajaynaynaa inaad si detail ah aad u fahantay circulatory systemka, habka uu heartigeenu contraction ku sameeyo iyo sida uu blood flow u sameynayo u dhexmarayo dhiigu heartigeena iyo inta meelood uu tegayo iyo sida uu tegayo iyo arteriyada dhiiga qaadi doona ee geyn doona tissuega iyo veinuska ka soo qaadaya ee keeni doona heartiga. intaasba waxaan filaya inaad si fiican u fahantay. insha allah intaan cashirka xiga aan ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa amaano allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.